بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kusoo dhawaada casharkii 13aad ee kitaabkii safiinaha casharkeennii hore waxaan uga soo sheekaynay meelaha sujuudu sahwigu la sunneeyo sujuudda labada sujuudood oo halmaanka iyo waxyaalaha leera bacdiga oo salaada sunnooyinka muhiimka ah oo ka mid ah oo sujuudda loola yimaado waxaan kaloo ka soo sheekaynay 14 shay ee salaada buriya oo aad iyo aad u muhiima qof kasta inuu ogaado ay tahay. hadda waxaan casharkeena ka bilaabi doonaa 4 meelood oo ay qasab tahay qofku imaamnimadka inuu niyeysto. qofka salaada hogaaminayo imaamka ah inuu imaamnimad niyeysto waajib ma ahan, waa sunno. hadduusan niyeysanna ajarkii imaamnimadku weynayaa, laakiin dadka ma'muumiinta inay niyeystaan ma'muumnimadka qalbiga soo gashtaan inay imaamkan ku xiran yihiin waajibay ku tahay iyaga. 4 meelood ayay laakiin imaamka oo salaada hogaaminaya ku tahay qasab inuu imaamnimadka qalbiga soo gashto. faslun alladii kii yalzamu uu waajibayo fiihi kaas dhexdiisa niyatulimaamati imaamnimadka inuu niyeystaahi 4 shay wey. aljumucatu jumcadii imaamnimad inuu qofku niyeystaa waajib ay ku tahay. maxaa yeelay imaamku markii uu hadda asagu uu salaada hogaaminayo ee caadiga u yahoon aysan kuwan aysan ka mid tahan 4tan hadduusan imaamnimad niyeysan jamaacadii ajarkeedu weynaya, laakiin salaadii asaga waa ka ansaxaysaa. laakiin jumco haddii ay tahay imaamnimad inuu niyeysta waa qasab. hadduusan niyeysanna jamaaco kuma jiro, jumcana jamaaco la-aan ma ansaxdo. walmucaadatu tii la soo celinayay ayaa jamaaco inuu niyeysto imaamnimad inuu niyeysto ay waajib ku tahay. mucaadadu waxa weeye duhuruu tukaday qofkaani, hadduu rabo keligiisuu tukaday, hadhow ayuu wuxuu arkay jamaaco kale tukanayso. waa sunno inuu jamaacadaas mar labaad la tukado, sunno weeye. waa bannaanta inuu soo celiyo salaadii oo mar labaad jamaacadaas la tukado. jamaacadii uu is yiri mar labaad la tuka duhurkii hadday yidhaahdaan naga bixi salaadan ee adigu imaam noo noqo, uu rabo marka salaadu keli ku tukada inuu hadda jamaaco ku tukado, imaamnimad inuu niyeystaa waajib ku ah. maxaa yeele hadduuse imaamnimad niyeysan salaadan jamaaco uguma ansaxayso. haddayse jamaaco ugu ansixinna soo celinteedu ma ansaxayso. maxaa yeele duhur waaba soo tukadaba, duhur waa uu soo tukaday ee wuxuu raba mar labaad jamaaco inuu la tukado. jamaacadii marka hadduuse imaamnimad niyeysan isaga jamaaco uma guntanmin, marka waa qasab inuu niyeysto. walmanduuratu salaadii la nadray jamaacatan jamaaco lagu nadrayna imaamnimad inuu niyeystaa waajib ku ah. waxaad tiri maanta duhurka inaan jamaaco ku tukada ilaahay igu leeyaho isku nadri, bas markaad duhurkii tukanaysay ayaa dadkii jamaacada ahaa ku yidhaahdeen naga bixi salaada. duhurkaaga maanta waxaa nadartay in jamaaco aada heshid soo maahan. haddii imaam lagaa dhiga waa inaa imaamnimad niyeysat. haddaadan niyeysan jamaacada ajarkeedi ma helayso, salaadaadu jamaaco adiga kugu ajarkeedi ma helaysid. haddaada jamaacada ajarkeedii helinna nadarkii kama soo baxaysid, marka salaada jamaaco kuma noqonayso, marka nadarkaa lagu leeyahay. waa inaa marka imaamnimad ka niyeysataa. walmutaqadimatu salaadii ama walmuqadamatu tii la hormarinayay filmatari roobka dartiis loo soo hormarinayana jamaaco waa inuu niyeystaa qofkii imaamnimad. maalan ba waxaa sunno ah ama waxaa bannaan meelaha qaarkood hadday jiraan dad meel ku wada tukada jamaaco ah oo mar kasta jamaacada masjidkaas ku xiran, roob uu yimaado masaajidkii ay ka fog yihiin, aysan soo laaba karin, aysan wadan baabuur ama maaragtay meel oo ay kasoo galaan roobka. maalan ba duhurkii hadday tukadaan, casirkii hadday duhurka roobaa socda, waxayna aamineen inaan casirkii lasoo laaba karin oo roobku badan yahay. ama maqrib ay tukadeen, waxay aamineen inaan cishaha lasoo laaba karin. dadkaasina waa dad meeshan ku wada tukada oo mar kastaba halkan ku tukada, ee maahan dad markay rabaanna guryahooda ku tukada, markay rabaan masaajid kale ku tukada. dadka noocaasa waxaa u bannaan in oo ay duhurkii haddii roobkaas xoogala jiro, casirkii inta soo raraan inay hadda duhurka la tukadaan markii roobkaasi jiro, cishihii inay inta soo raraan maqribka la tukadaan u bannaanta. laakiin dad weynaha kaleo iska soo tukaday maya, dadka kaleo iska soco gurigooda markay rabaan ku tukadaan maya. maxaa yeele waxay usoo hormarinayaan dadkaani jamaacadii joogtada ay heli jireen ayay weynayaan haddii ay guriga aadaan. marka adigu haddaad guriga ku tukan jirta markaad doontid
maxaaba hadda u jamcinaysaa gurigaaga ku tuko marka qofkii salaadii sidaas loo soo hormarinayo qofkii imaam looga dhigo oo casirkii lasoo raray ama cishihii lasoo raray imaam looga dhigo waa inuu imaamnima niyeysta. haddii kale jamaaco uguma xirmin, jamaaco haddaysa ugu xirminna soo hormarintii salaadiisu ma ansixin. faslun, fasalkan wuxuu ka waramayaa imaamka dadka salaada ku xiranaya oo ma'muumiinta ah shuruudda looga baahan yahay. shuruudu lqudwati ku dayashada shuruudeedu 11 waa 11. allaa yaclama ruuxu inuusan aaminin weeye butlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisu inay burtay bixadathin dahaaro la-aan ay ku burtay aw gayrihi ama wax kale. 11 shardi ayaa marka aad qof ku xiranaysa salaada la rabaa 11 in la hela. 11kaas shardiga kood waxa weeye imaamka aad salaada ku xiratay salaada waa inaysan ka bursanayn saa aaminsan tahay. allah yaclamu inuusan ogeyn butlaana salaati imaami, macnaha qofkaani inuusan weese qabin aa ogaatay ama jirkiisa najaasa inay ku taalo ayaa ogaatay, salaada kuma xiro kartid, salaada kuma xiro kartid. waayahay marka ictiqaadul ma'muum miyaa la fiirinayaa mase ictiqaadil imaam dahaaro la-aanta? sida annaga madhabkeena ku xooga badan ma'muumkaa la fiirinayaa oo ma'muumka maalan ba haddii uu yahay maalan shaafici, ma'muumku waa shaafici, wuxuu wax ku xiranayaa imaam xanafiya oo maalan ba hadduu rabo xaaskiisa soo taabtay ama maahane waxyaalo kaloo salaadu aysa uga jebin sameeye asaga, adiga laakiin shaaficiyada u taqaanid. marka haddaa ku og tahay ma ku xiranaysa mase kuma xiranaysa? sida raajixa yani markii xaaladdu caadi tahay inuu qofku hadduu og yahay imaamku wax salaada uga burtay inuu sameeyey aad og tahay kuma xiranaysid. laakiin haddaadan ogeyn yani ninkani waa madhab hebel ma lihid marba haddaad ogeyn inaa samayn. gaar ahaan markii la joogo qurbaho kale, dadka qurbaha jooga waxaa laga yaabaa in masaajidiiba masaajid dadka shaaficiyada ay yar yihiin, masaajida kale oo eeshiyaanka xanafida badan yihiin, dadkaas laakiin waa isku xiranayaan dadka muuminiinta. haddaad og tahay asaga salaadiisa ay sax taho madhabkiisa ku saxta oo ku xiranaysaa. annaga madhabkeenana waa qabaa aimad qabta ictiqaadulimaama la fiirinayaa. markaas ictiqaadulimaam masaa-ishaas annagoo raacayna de qurbaha dadka ah muslimiinta awala yaraan hadday kala cararaan waxaaba faa'iidi mahayaan, laakiin qofkii kaleo meel kala joogo waa caadi. marka xadath waa dahaaro la-aantii aw gayrihi ama najaasa saaran. walaa yactaqida qofkan ma'muumkaahi waa inuusan aaminin wujuuba qadaa'ihaa salaadan qalaheedu inuu waajib yahay caleyhi imaamka korkiisa inuu ku waajib yahay. haddii ka waran salaad imaamku ay tahay inuu soo qalleeyo ay salaada uu tukanayo ku xiran maysid. maalan ba ninkaani meel wuxuuba wejigaa kab ka saaran yahay, nabaraa wejiga uga dhacay, faashadaa ka saaran ama gacnihii faashad ka saaranta, marka waa uu weesaystay waana uu booraystay. haddii marba kabku ka saaran yahay qofka xibnaha booraysiga markasta hadhow salaadiisa u soo celinaya. qofka marka noocaas u dahaaro qaata asaga salaadiisa u soo celinaya, salaadaada kuma xiro kartid, asagaa kugu xiranaya kaliya. qofkii aad aaminsantahay salaadiisa inuu dib usoo qalay doono ee hadda waqtulxurmo uu sii tukanayo kuma xiro kartid adigoo adiga salaadooda sax tahay. asagaa kugu xirana marka adigu imaam waa inaa noqoto wey. walaa yakuuna waa inuusan noqon qofka a ku xiranaysaa ma'muuman asagu ma'muun mid maalan ba nin dad kale ku xiran oo salaada ugu xiran oo ma'muuma, adiguna gadaashiisa kusii xiran maydid asaga ee cidda uu asagu ku xiran yahaad ku xiranaysa salaada. walaa ummiyan qof ummiyana waa inuusan ahayn. ummigu qof aan wax aqoona laga wadaa. wax aqoonta marka qof aan waxba aqoon lagama wado, yacni qof maalan ba faatixada qeyb ka mida aan akri karin oo kale oo aan karin oo kale, xaraf faatixada ka mida uusaba karinba. haddii xaraf faatixada ka mida uusan karin oo uusan ku dhawaaqi karin, qofkaas salaada kuma xiranaysid, adigaa la rabaa inaad bixisid. marka imaamka haddii xarfaha faatixada xarfo ka mida uu ka ummi yahay waxa weeye maya. haddii labadiina ninba uusan xaraf karin xataa iskuma xiran kartaan, ilaa in labadiina isku mid tihiinoo isku hal xarafaadna karinba, markaas labadiina laba ummi isku mid tihiin. laakiin ninba xaraf hadduu ka jaban yahay
iskuma xiri kartaan oo ninba maruu caalim yahay ninba maruu ummi noqonaya marka ummiga marka waxaa laga wadaa nin oo ataxiyaadkiiuusan aqoon ama qeyb ka mida karin ama faatixadii qeyb ka miduusaba ku dhawaaqi karin carab ahaan kaasa laga wadaa qofki wax dhan aqoon hadda waaba kasii daran yahay waanlaa yataqadama waa inuusan hormarin ma'muumku calaa imaamihi imaamkiisa waa inuusan ka hormarin fi lmowqifi meesha uu taagan yahay uusan ga hormarin imaamka waxaa la rabaa inaada ka hormarin tusaale haddii la taagan yahay maalan waa inaada ciribta imaamka aysan ka hormarin haddii la fadhiyo waa in sintaadu aysan sinta imaamka ka hormarin waxaa badanaa khatar ah meelahan maalan dadka muslimiinta qurbaha ay ku tukadaan ee yaryaroo masaajid ahaanta oo isticmaalaan markii wixii ciriiri yihiin waxaa jira dad oo maalan ba imaamkii safka hore hadday imaamka ay ku dhow yihiin inay la siman yihiin camal ay yihiin dad waxaa jira kursi dhigta safka hore ee imaamka safka ku dhow dhigta kursigii marka wuxuu la sinan yahay safka asaguna horuu taaganya waxaa laga yaaba imaamkaba inuu ka horeeyo markuu fariisto marka hadhow imaamka la sinmaya oo safka la sinmaya kursiga ku fariisto laakiin markuu taagan yahay qofkaani imaamka xataa ka horeeya hadday yacni saf oo imaamka maalan baciriiriyanaya ay yihiinoo ku dhowaa markii meeshu ay ku yartahay jamaacada khatar wey qofkaas marka inuusan safka hore gelin wey haddii kursiga markuu ku istaago oo imaamka ka hormarayo markuu kursi ku tukanayay hadduu lugihiisu imaamka ka hormarayan markuu istaago eber waay marka waa inuu safafka dambe gala qofkaas waanlaa yaclama waa inuusan ogaanin ma'muumkani waan yaclama dheh ma'muumku inuu ogyahay intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuritaankiisa imaamka guurguuritaankiisa yacni sida uu wax u wadaa laga wadaa maalanba marka uu rukuucayo markuu soo ictidaalayo markii uu maaragtay sujuudayo markuu kasoo toosayo ala rabaa marka dhowr maadaa lagu ogaadaa waxaa ku ogaa kartaa imaamkia ujeedaa waxaa kaloo ku ogaa kartaa safkii la socdaad ujeedaa haddii dadku safku badan yihiin waxaa ku ogaa kartaa codka imaamka maqlaysa haddaad safka ku xiga maqlayn waxaa ku ogaa kartaa mubaliq qof gaarsiina haddaa codkiisa aada maqlayn qof meel dhexa jooga oo sii gaarsiinaya haddii uu jiro markaasna waa oo codka kasoo gaarsiinaya laakiin waxaa qalad ah imaamkii oo codka maaragtay asagu gaarsii kara dadka oo microfon haysta haddii uu qof uu kor u qaado asagu isku dayo inuu dadka gaarsiiyo waxaa kutubteena fiqhiga ku qoran min albidaci alqabiixa inay ka mid tahay bidcooyinka xun oo aada u leetay marka lama ogola taas yacni imaamkuba hadduu codka gaarsii kara dadka in adigu aada kor u qaylisid ma'muuma looma baahno waa yahay marka imaamka guurguuritaankiisa ina la socotida la rabaa waan yajtamicaa imaamka iyo ma'muumku waa inay ku kulmaan fii masjidin masjid waa inay tahay meesha ku wada tukanayaan aw amase haddaysan masjid ahayn 300 diraacin 300 oo dhudhun waa inay tahay meesha ay ku wada tukanayaan taqriiban dhawaasho ah meesha haddaad imaam tahay imaamka haddaad masjid kuwada jirtaan intii uu rababa ha kuu jiro meeshan marna waxaan ka hadlaynaa ansixidda salaada aad ku xiratay inay kaa ansaxayso marna waxaa laga hadlayaa ajarka jamaacada hadda ansixidda haddaan marka hore ka hadalno imaamka masjid haddaa ku wada jirtaan adigoo dhowr boqoloo tilaabo u jira ee aan adiga asaga waxba idiin dhaxa inaad ku xiro kartaa imaam qof mixraabkaas hore ku tukanaya adigana meel halkaas masaajigu aan ku tukanaysid waa ku xiro kartaa laakiin ajarka jamaacada 3 dhudhun haddaa iskaga fogaataan ma helaysid ama aadan safaf badan oo isla xirxiriira aada ku jirin marka adiga imaamka haddaan wax idiin dhaxayn aad u kala fogaataan ma helaysid ajarka jamaacada 3 dhudhun haday ka fogta laakiin salaada waa kaaga ansaxaysaa qof halkaas hore masaajidka hortiisa keligiis ku tukanaya haddaa aragtid ee adiguna aad masaajidka salkiisa haddama inta istaagtid ku xiratid waa ka ansaxaysaa ansixidii laakiin ajarka jamaacada maya ama haddaysa meeshu masjid ahayn waa in imaamka iyo ma'muumku aysan 300 oo dhudhun ka badan isu jirin yacni waxaa laga wadaa markii safaf aysa u dhexayn safaf haddaysa u dhexayn laakiin hadday safaf u dhexeeyaan asagii imaamka 1,000 mitir isu jiri karaan intaasoo dhowr boqoloo 1,000 mitir dhowr 10 mitir isu jiri karaan haddii safaf u dhexeeyaan qofka u dambeeya hadduu raba intaasoo 1,000 mitir ha jirsado waxaa laga wadaa asaga iyo imaamka haddaan waxba u dhexayn meel banaana ay iskaga xiranayaan 300 oo dhudhun iyo wixii ka yar qofkuu jiraad xataa salaada ku xiro kartaa laakiin ajarka jamaacada ka heli maysid 3 dhudhun wixii ka fog haddaan safaf aysa ahayn isku xiran
adoo kaliga halkaa taagan maayo wa an yanwiya waa inuu ruuxaani niyeystaa alqudwata dayasho aw iljamaacata jamaaco ama ma'muum inuu yahay waa inuu niyeystaa inaad ku xirato waa inaad niyeysato maxaa yeelay qofkan waxaa rabtaa inaad raacdid oo daba joogtid oo markuu asagu foorarsado markuu rukuuco markuu sujuudo markuu ictidaalo asaga inaad daba joogtid al rabaa marka waa inaad ku xirataa haddaadan ku xirana ee aad iska raacraacdid oo asaga aad sugtid salaada kaa buraysa waa inaad marka ku xirataa xirasho niyeysata qofka inaad ku daysanaysid salaada haddii aad goosati duruuf kugu timaadana ka goosan kartaa kow wa an yatawaafaqa waa inuu iswaafaqaho isyeeshaa nadmu salaatayhimaa imaamka iyo ma'muumka labadooda salaadood qaabkooda waa inuu isyeeshaa yacni laba salaadood oo islaha la isku xiro karaa nin duhur tukanaya iyo nin salaatuljanaaza tukanaya iskuma xiro karaan salaatuljanaaza ma rukuucay leeda mise sujuud waa maya iyo qofka duhurka tukanaya iskuma xiro karaan laakiin waxaa isku xiro kara qof duhur tukanaya iyo qof subax qalla ah tukanaya oo subaxi ka tegay qof sunno tukanaya iyo qof farad tukanaya waa isku xiro karaan marba salaaduhu hadday isleeyihiin laakiin kuwa aan islahayn iskuma xiro karo haddii salaada la tukanaya ay qorax madoobaad ama bil madoobaad tahay qaababka loo tukado waxaa ka mid a mar laba rukuuc iyo laba ictidaal iyo ay leedahay marka noocaas loo tukanaya ee aan sidii caadiga had loo tukanayn laguma xiro kara salaad kale qof tukanaya marka labada qaab salaada waa inuu isyeeshaa wa anlaa yukhaalifa waa inuusan ka khilaafin ma'muumkuhu imaamkii fii sunnatin sunno waa inuusan ku khilaafin sunnadaasoo faaxishati lmukhaalafati khilaafkeedu uu xun yahay haddii ka waran imaamku markii uu maalan ba sujuudu sahwi imaamkii oo adigu fadhiya ad adigu sujuudu sahwi aad waad khilaaftay ama imaamkii waxa weeye atixiyaadka hore waa ka tegi adiguna waa iska wadanaysaa imaamka iyo adiga inaad iskhilaaftiin ma aha oo sunno khilaafkeedu xun yahay isku khilaaftaan wa an yutaabica ma'muumku waa inuu raacaho imaamkii waxaa jira raacitaan waxaa kaloo jira muqaarano mutaabaco iyo muqaarano iyo taqadum iyo ta'ahuraa jira yacni taqadum lama ogolo horta imaamka inaad ka hormartid ta'ahurkuna inaad wax badan ka dambaydidna lama ogola muqaarano oo isku mar imaamka rukuuca isla mar samaydaan isla mar sujuudaan isla mar wax kasta samaydaanna ma fiicna mutaabaca la rabaa marka mutaabacadu waxay tahay wa an yutaabaca waa inuu raaca mutaabaca waxa weeye marka imaamku ruknigan galo iyo intuusa ka soo bixin dhexdeeda waa ina adu soo gashaa daba joog marka inaad daba joogtid intuusa ka soo bixinna gal ha la margelin hana ka horgelin markuu ka soo baxana ha sugin ee waxaad gashaa markuu asagu galo kabacdi iyo intuusa ka soo bixin inta udhexaysa suwaru qudwati fasalkan wuxuu ka waramayaa 9 jeer oo 5 jeerna la isku xiro kara salaada 4 jeerna aan la isku xiro karin suwaru lqudwati dayashada qaababkeedu 9 waa 9 yacni qaababkaasay ku suurtagal tahay 4na kuma ansaxda 5na waa ku ansaxda tasixu way ansaxda dayashadii fii 5 gooray ku ansaxda 5 jeer kow tan koobaad maxay tahay qudwatu rajulin nin xirashadiis ayaa ansaxda birajulin nin uu ku daysado nin ku daysada waa ansaxaysaa kitaabkan kitaab aad u qalad badan wey nin oo nin ku xirta salaada waa ka ansaxda kow wa qudwatu imra'atin birajulin haweeney oo nin ku xiratana salaada waa ka ansaxaysaa waa 2 wa qudwatu khunhaa qofkii nimownaagga ah oo labeebshe ahaa oo daysada birajulin nin ku daysadana waa ka ansaxaysaa salaadu wa qudwatu imra'atin haweeney oo ku xirata salaadii bikhunhaa qofkii labeebshaha ahna salaada waa ka ansaxaysaa wa qudwatu imra'atin haweeney oo ku xirata bimra'atin haweeney kalena salaada waa ka ansaxaysa 5taas jeer waa la isku daysan karaa nin ku daysada haweeney nin ku xirata labeebshe nin ku xirta haweeney labeebshe ku xirata haweeney ku xirata 5taasay ansaxda wa tabdulu salaadii waa ay burtaa fii 4 jeer wa tabdulu lqudwatu yacni dayashadii isku xirashadu waa ay burtaaho ma ansaxdo fii 4 goor qudwatu rajulin nin oo ku xirta bimra'atin haweeney ayaa buraysa oo ninku hadduu ma'muum noqdo haweeneyduna imaam noqoto ma ansaxayso wa qudwatu rajulin nin oo ku xirta bikhunhaa labeebshana kii nimownaagga ahaana ayana ma ansaxayso maxaa yeele waxaa dhici karta labeebshuhu inuu noqdo hadhow naag uu noqdo u caddaado
waqudwatu khunthaa labeebshihii oo xirta bimra'atin haweeney ku xirtana ayana ma ansaxayso oo waxaa dhici karta haweenaydu labeebshuhu inuu hadhow nin u caddaado waqudwatu khunthaa kii labeebshaha ahaa oo xirta bikhunthaa labeebsho kale ku xirtana ma ansaxayso oo waxaa dhici karta kan ma'muumka noqda inuu nin noqdo hadhow kan imaamka noqdana uu haweeney noqdo marka afartaas ayana kuma ansaxdo oo nin haweeney ku xirtay nin oo labeebsho ku xirtay labeebsho haweeney ku xirtay labeebsho kale ku xirtay yani labeebsho waa qofkii ninkii naagta ahaayoon kala cadaan marka 9kaas jeer ayay ku timaadaa ku dayashadu casharkeennan soo socda waxaan ka bilaabi doonaa mowduuc muhiima waa safarka qaabka salaada loo tukanayo oo gaabintii ama isku daridii ah in sha allahu tacala casharkeena intaasan ku hubeyna wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu